السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كورساقون channel muuqaalkani waxaan rabaa inuu noqdo muuqaalkii labaad ee ku saabsanaa casharkii shortcut ka ahaa ama hore waxaan ku tusay muuqaal shortcut ah ama sida shortcuts ka qaar kamid ah loo isticmaalo. maantana waxaan ku tusayaa shortcuts kale oo ay kamid yihiin screenshot sidaad ugu qaadi lahayd adoo isticmaalaya shortcut iyo waxyaabo lamid ah. hadaba daawasho wanaagsan. shortcut-kan koobaad wuxuu noqonayaa sidee ayaad shay ugu samaysaa restore down. tusaale ahaan hadda waxa halkan furan program ama waxay furan Foxit Reader oo hadii ama program ku doonaha noqdo tusaalahan Word ka ha noqdo sidee ayaad aad restore down ugu samaysaa adigoon button kan taabsan. waxa isla taabstaa keyboard ka button ka loo yaqaano Windows keyga iyo down arrow isaga ayaa restore down ka dhigaya. hadaa doonaysid inaad maximize garayso ama sidiisii hore ku celisana isla button-kii iyo up arrow taabo isla sidiisii ayuu kugu celinay. sidoo kale hadaad halkan sare ee title bar-ka double click siiso restore down ayuu oranayaa. hadaad ku celiso laba jeer double click-na wuxuu ka dhigayaa maximize ayuu ka dhigayaa. sidoo kale hadaad click intaad siiso halka title bar-ka aad hoos soo jiido wuxuu ka dhigayaa restore down ayuu oranayaa. sidoo kale hadaad title bar-ka inta taabato kor jiidana wuxuu ka dhigayaa uu maximize gareynaya. sidaas waa hababka kala duwan ee program aad isticmaalayso ama shay aad ku guda jirto loo maximize gareeyo ama loo minimize gareeyo loo restore down loogu sameeyo. shortcut-kana labaad wuxuu noqonayaa sidee ayaad screenshot ku qaadaa ama shaashada computer-kaaga u sawirtaa adigoon isticmaalin snipping tool. waxaad taabataa kaliya button-ka Windows key iyo print screen sidaasna waxaad ku qaaday screenshot. marka screenshot-ka waxaad ka soo helaysaa hadaad tagto file explorer-kaaga oo aad ka sii tagto pictures-ka kana sii tagto halkan ay ku qoran tahay screenshot. waa kan short screenshot-kan hadda soo qaadnay waa halkan inoo yaala. kuwan oo dhan waa screenshots aan qaaday waa kan imika halkan inoo yaala kii u dambeeyay aan qaadnay. tusaale ahaan waa halkan ba joogna hadaan doonayno inaan screenshot qaadno si uu bartan inoogu soo galo waxaan isla taabanayaa button-ka ay ku qoran tahay Windows key ama button-ka Windows keyga iyo print screen sidana waxa ku qaaday screenshot waana ka xagan u dambeeyay inoo soo galay waxa ay ku qoran tahay screenshot 22 ama 22 oo waxa weeyaan hadaan double click siiyo si uu igu furmo. okay si uu igu furmo uu furmay. hadda waxaad aragtaa screenshot-kan ka soo qaaday markii dhaweyd anigoo dhex jooga folder-ka screenshot-ka ugu dhaw waxyaabaha screenshot-kii. okay shortcut-kana saddexaad ee maanta ku tusay waxa weeyaan isla screenshot weeyaan balse screenshot adigoo qaadaya sideed qaybta doorato oo kaliya u qaadi kartaa. tusaale ahaan intan imika folders-kan oo kaliya yeelan ama waxyaabahan icons-kan oo kaliya sidee ayaan screenshot uga qaadaya ama inta doonto oo kaliya. waxaad isla taabataa button-ka Windows key shift iyo s marka intaas la taabato waxa ku soo bixi doonta calaamadan yar ama qaabka wax yar ayaa ku soo bixi doona. halkan calaamada yar plus-ta ayaa tagaysaa halkaad inaad ka bilowdo screenshot-ka doonayso. tusaale ahaan taas oo kaliya hadaan doonayo intaad left click siiso intaad click siiso ayaa soo jiidaysaa intaad doonayso. tusaale ahaan intaas oo kaliya ayaan doonayaa intaas ayuu screenshot iga qaadaya. markuu saa uga qaado ma geynayo screenshot-kan ma geynayo halkii screenshot-kan markii ay sheeganay balse wuxuu kugu qabanayaa clipboard-ka computer-kaaga. markaad qoraal oo kale sameynayso ayuu kan ayaa bada kale adeegsadaa. hadaan marka Word-ka kale dhex tago oo halkan oo kale aan paste ku iraahdo left click taabto oo aan paste iraahdo halkan waxa soo gali doona screenshot-kii aan soo qaaday waka halkan ayuu soo galay. markaad wax degdeg inaad screenshot ku qaado doonayso ama aad wax diyaarinayso ayaa la adeegsadaa Windows key shift iyo s ka bacdina wax sidan ayaa ku soo bixi doonta. marka inta doonayso screenshot laga soo qaataa waa la qaataa sawirka marka waxaana la geystaa halka doonayso inaad ku paste garayso. tusaale ahaan imika ka labaadna aan halkan ku paste gareeyaba halkan aan ku paste gareeyaba paste hadan iraahdo waa kan isna halkan soo galay waa kan. okay shortcut-kan afraad waxa weeyaan programmada ku furan sidee ayaad hadba ka doonayso uga dooran karaysaa iyagoo halkan kugu soo furmaya wada mid walba Windows-kiisi ama daaqadiisii. waxaad taabataa alt iyo tab waxaana ku soo baxaya waxa program hadda ay furan oo dhan waa kuwa intaas oo dhan ayaa furan. marka ka doonayso ayaad u tagaysaa oo click siin karaysaa ama waxaad taaban kartaa inta tab gacanta ka qaado ayaad tab taaban kartaa tab ayaa taabanaysaa hadba kugu xigay ayuu ku geynayaa oo hadda kaas ay dooran hadda ka ay dooran hadda ka kale ee multimedia ku qoran tahay ay dooran oo ah folder hadda waxa ay dooran VLC. hadaan sii daayo imika tab waxa soo bixi doona waxaan toos tagi doonaa VLC. hadaan sii daayo VLC ayaan toos tagay. mar labaad kugu celiyo waxa taabataa alt iyo tab ka bacdina sii daa tab-ka. marka hadda tab imka taabato hadba ka doonayso markaad u tagto waxaan doonayaa inaan competition aan furo tab baan taabanaya tab baan click siinaya markuu competition dul marayo
highlight khayra cadi ayaan sii daynaya markaan sii daayo toos ayuu software-kii dhex geenaya furnaa okay shortcut-kan afraad waxa weeyaan sidee ayaad u soo furi lahayd task manager waxaan rajeynayaa task manager garanayso task manager inaad soo furto markaad doonayso waxaad taabataa control iyo shift iyo buttonka ama keyboard keyga ay ku qoran tahay ESC ee ugu koorneeya ee ku yaala koornaha bidixda markaad taabato waxaad toos u soo furmi doonaa task manager-ka waa kan ayaa task manager loo yaqaanaa hadba wixii hawlihii computer-ka ka soo dhex socda ayaad halkan ka arkaysaa tusaale ahaan software programka doonayso inuu kaa xidho ayaad halkan laga xidhi karaa haddaan imka doonayo inaan Foxit Reader-kaas kala xidho click ayaan siinayaa halkan ayaan end task taabanaya halkaas ayuu ka bixi doonaa haddaan click siiyo imika halka uu ka baxay imika waa sida task manager-ka loo soo furo aan mar labaad ugu celiyo waxaad taabataa control shift iyo buttonka ay ku qoran tahay ESC ee ku yaala koornaha bidixda ee xagga sare ee ay ku qoran tahay ESC haddaan taabto hadda waxa soo furmi doona task manager-kii oo ka wada aragtaa filaya okay waxaan rajeynayaa shortcut-iska aad ka heshay ama aad wax uun ka faa'iiday ama aad maanta baratay shortcut aanad hore u aqoon ana rajeynayaa inaad isticmaali doonto si ay kugu fududeeyaan hawlaha aad dadba qabanayso tusaale ahaan marka aad doonayso inaad meel tagto waxa la maraa wadooyinka gaagaaban balse lama maro wadada dheer shortcut-kuna waxa weeyaan wadadii gaabnayd ee aad ku gaari lahayd hawl aad ku dhex qabanaysay computer-kaaga waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee channel-ka haddii aad hore ugu xidhnaydna share iyo like ha ilaawin waad ku mahadsantahay daawashadaada thank you very much